مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kulanti wacan waxaan hore usii wadaynaa duruustii siirada nabiga calayhi salaatu wassalaam. xalaqadii aan soo dhaafnay waxaan kaga soo sheekeynay sadcigii nabiga calayhi salaatu wassalaam markuu dacwadii la jahray uu maaragtay quraysh oo dhan u yeeray uu maaragtay uga digay allah subxaanahu watacaala cadaabkiisa uguna yeeray towxiidka ugu yeeray. marka xalaqadii hore ayaan kaga soo sheekeynay, laakiin hadda waxaan rabnaa maaragtay qayb yar oo hadalka nabiga calayhi salaam ku jirtay inaan wax yar dul istaagno, kadibna axdaastii ku xigtay aan ka sheekeynay haddii ilaah yiraahdo. hadalka nabiga calayhi salaam waxaa ku jiray in uu maaragtay qoomkii maaragtay qoloqolo iyo qabiil qabiil uu la hadlay, uu yiri yaa bani fulaan yaa bani fulaan yaa bani fulaan anqiduu anfusakum min annaar innii laa amliku lakum min allaahi shay-an. naftiina maaragtay naarta ka badbaadiya, cadaabka ilaahay ka badbaadiya, aniga wax aan idiin tari karo maaragtay alla agtiisa ma jirto macnaha. halkaa marka nabiga calayhi salaam wuxuu ku caddeeyey qaacido maaragtay asaas u ah towxiidka uu ku dul dhismayo ayuu meeshaa ku caddeeyey, oo ah dadkoo dhan in maaragtay cid kale wax u tari kartahay inaysan jirin maaragtay, oo kulligood ay yihiin addoommo ay yihiin, lana rabo kulligood alla subxaana watacaala inay u jahaystaan, alla kaliya u hoggaansamaan, alla kaliya subxaana watacaala ay ka dambeeyaan. waxaa meesha ka baxay marka cid kasta oo sheegan jirtay sifaadkii alla subxaana watacaala ka mid a ama ilaahnimadii wax ka mid a uun sheegan jirtay oo dadka ku addoonsan jirtay ayaa meesha ka baxday maaragtay. ha noqoto asnaamta ay caabudayeen oo ay lahaayeen ilaahay subxaana watacaala ay noo dhoweynayaan oo wasaa'id annaga alla noo dhexaysa bay yihiin ay lahaayeen ayaa meesha ka baxay. cid kale wax u tari kartaa ma jirto macnaha ayaa meesha ka soo baxday. waxaa kaloo meesha ka baxay dawaaqiidii kala duwaneed oo sultaan iyo awood sheegan jiray oo dadka ku addoonsan jiray, ayagana meesha ayay ka baxeen, oo cid kale wax u tari karta ama cid maaragtay qof kale maaragtay wax dheer ma jirto. kulligood waxay yihiin addoommo ayay yihiin, waxaana laga wada rabaa allah subxaana watacaala inay u wada hoggaansamaan, alla ay ka wada dambeeyaan, alla ay ka wada marqaataan ayaa laga rabaa macnaha. marka waana arrin ay dawaaqiidda aad u necab yihiin maaragtay, oo wax kastoo ay sheeganayeen dhoodhoobanayeen dadka ay maaragtay ku addoonsanayeen ayaa laga siibay maaragtay oo laga qaaday, oo sida saxda ahna maaragtay waxay shaqo ku leeyihiin ama ay lahaayeen aysan ahayn, waa wax ay un sheegteen oo dhoodhoobteen. marka hadihi alxaqiiqa waa xaqiiqa ay dhibsanayaan maaragtay jaahiliyada maaragtay aad ay u dhibsanaysa waay macna. sidii markuu nabiga calayhi salaam ula hadlay oo maaragtay u digay kulligood, meeshii waa lagu kala tegey. abilahab uun baa maaragtay hadal soo celiyey, laakiin dadkii kale maaragtay wax nabiga calayhi salaam u jawaabay ama hadlay ma jirin, oo meelahoodii guryahoodii iyo nawaadidoodii ayay ku kala noqdeen ayagoo markaa yaaban arrintan maaragtay arrin ku cusub oo ayna maaragtay filanaynin ku noqotay. yacni dhanka kalena ay isweydiinayaan maxaa xigi doona, maxaa arrintan ku xigsan doona,
ay isweydiinayaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noqon doonaa sidii raggii hore u hadlay oo kale u noqon doonaa. rag waxaa jiray maaragtay muwaxidiin ahaa oo maaragtay shirkiga iyo xumaantiisa ka hadlay, dadkana maaragtay uga digay, laakiin ta'thiir ama saameyn bulshada kuma aynan yeelanin, sida zayd ibnu camr ibn nawfal, waraqa ibnu nawfal iyo rag kaloo maaragtay dhulka carabta ku kala noolaa baa jiray. laakiin bulshadii wax ay ka bedeleen ama maaragtay dad ku raacay arrintii maaragtay lama sheegin. marka dadkaasoo kale noqon doonaa oo maaragtay waqti wax iska sheega kadib maaragtay meeshaan warkiisu ekaado, mase nolosha wax badan buu ka bedeli doonaa. arrintaas bay isweydiinayaan oo maskaxdoodii la wareegaysa, laakiin way dareensan yihiin in uu maaragtay ka duwanaanayo, leanna nabiga caleyhi salaam sifaadkiisa, shakhsiyadiisa, makaanada uu bulshada ku dhex lahaa aad bay u garanayeen. waxay kaloo maaragtay kusoo duulduulay intii siriyada lagu jiray inuu nabiga caleyhi salaam dad ay raaceen oo maaragtay tiradooda intay leegyihiin aysan garanayn. marka nabiga caleyhi salaam hawshiisa watay, dacwadiisa ayuu maaragtay la jahrayay, xaqiiqada islaamka ayuu caddaynayay, shirkiga iyo foolxumadiisa ayuu bayaaminayay, hawshiisii ayuu watay. saxaabadii maaragtay hore u islaamay qaar ka mid ah ayagana islaamkooda caddaystay oo la soo baxay. marka gaaladii arrintii aad bay maaragtay u dhibsadeen, waxay ku noqotay maaragtay arrin macnaha khatar ay u dareemeen oo ah in maaragtay dacwadan ay hore u socoto, dad cusub ay raacayaan oo haddana maaragtay maxay ahayd mujtamacii jaahiliga ka soo go'aya mujtamac yar uu meesha ka dhex samaysmayo. arrintii marka khatar bay u arkeen, waxay yidhaahdeen waa in arrintan aan waajahnaa. way isku yimaadeen, waxay ku tashteen inay horta marka hore abi taalib ay u tagaan oo ay la hadlaan oo ay maaragtay ka codsadaan in uu maaragtay wiilkiisa celiyo, howshaan ka celiyo macnaha. marka way soo baxeen, guddigii u soo saareen, abi taalib u tagay, odayaashii maaragtay reer Maka ka mid ah abi taalib ay la hadleen, waxay ka codsadeen in uu maaragtay wiilkiisa arrintan maaragtay arrin dhib nagu ah weeye, waxa waaye maaragtay waxayna dhan buu burburinayaa, dhaqankeenni, odayaasheenni, maaragtay aalihadeenni wixii buu ceebeynayaa, dhaleeceynayaa. marka arrintan anaga waan dhibsanay, marka adigana waxaa tahay oday odayaasheenni ka mid ah, diinteennina nala haysta, marka waxaan kaa rabnaa inaad wiilkaaga arrintan aad ka celiso ayaan kuugu nimid bay yidhaahdeen. abi taalibna xoogaa si degan ayuu ula hadlay. marka waa maaragtay meeshii bay ku kala tageen. kadib waxay arkeen inuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam howshiisi sii wato, dacwadiisi u sii wato, wax isbedelayna aynan jirin. marka haddana waxay maaragtay yidhaahdeen waa in yacni aan arrintan si kasto aan ku joojin karna aan ku joojina. marka waxay bilaabeen inay isticmaalaan duruq ama qaabab kala duwan, wasaa'il kala duwan ay isticmaaleen oo ay dacwadaan ay isku dayayaan inay maaragtay ay joojiyaan, dadkana maaragtay ka hor istaagaan inay raacaan ay isku dayeen. marka ugu horeysa kama aynan bilaabin inay xoog iyo caburin iyo dhibaateyn, kama aynan bilaabin, qaabab kale oo maaragtay ka horeeya ayay isku dayeen. mar markuu qaab fashilmo qaabka kale ayay u gudbayeen. wasiiladii ugu horeysay ay isticmaaleen waxay ahayd as-sukhriyatu wal-ixtiqaar, macnaha in ay maaragtay nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ay ku jeesjeesaan, dhanka kalena ay liidaan. macnaha arrintaas oo ay uga dalan lahaayeen inay macnawiyan ay maaragtay niyadjab ku sameeyaan, nafsiyaadkooda ay burburiyaan ayay maaragtay rabeen macnaha. marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxay u bixiyeen magacyo kala duwan ayay u bixiyeen oo ay ugu yeeraayeen maaragtay. mar ay yidhaahdaan waa majnuun, maaragtay qof waalan waay ay yidhaahdaan. mar ay yidhaahdaan waa maaragtay saaxiroole beenaala ah ay yidhaahdaan. mar ay yidhaahdaan waa kaahin oo maaragtay faalalow ah. magacyo kala duwan ay u bixiyeen maaragtay. arrintaasna arrin yacni weligeed maaragtay dadka yacni jaahiliyada markii ay ducaadda iyo ambiyada iyo la dirirayaan arrin ay isticmaali jireen waay. ilaa yoomina haadan la isticmaalo in magacyo kala duwan loo bixiyey maaragtay. nabi muuse markuu ilaahi subxana watacaala nooga sheekeynaya, waqaaluu yaa ayuha saaxiru udcu lanaa rabbak, yaa ayuha saaxiru bay leeyihin. marka in magacyo loo bixiyo dadka dacwada wada waa dariiqad weligeed la isticmaali jiray, ilaa maantana la isticmaalo magacyadaasoo marka dhanka kalena marka horena niyadjab la rabo daaciga in looga dhigo, marka kalena dadka yacni xaq inay ka cararaan magacyadaas qofkaa leh inay ka didaan maaragtay. war masaaxiroolaa wax ka dhegeysanaysaa, ma qof beenaalaa wax ka dhegeysanaysaa iyo wax lamid a. marka dariiqaasna way isticmaalayeen. muslimiinta saxaabadii nabiga caleyhi salaam raacayna ayagana saasoo kale maaragtay ugu jeesjeesi jireen. waxay dhihi jireen boqoladan baa ilaahi subxaana watacaala naga doortay, maaragtay anagan waaweyn oo maaragtay raggii qiimaha lahay ah
oo joogno maaragtay ma ilaahay subxana watacaala ma kuwaan bu maaragtay galladiisa siistay maaragtay kuwaan miyuu doortay ahaulaa'i mana allahu calayhim min beynina ilaahay subxana watacaala isagaa yaqaana dadka mudan hanuunka mudan oo maaragtay shaakiriinta ah ay ilaahay subxana watacaala isagaa yaqaana alaysa allahu biaclama bishaakiriin intay waddada fadhiistaan ay muuminiinta ku jeesjeesi jireen ku qosli jireen markii ay soo maraan intay isku tilmaamaan isku iljabiyaan ay maaragtay yidhahdaan qoladan waa qolo baadiyeysan oo dhunsan ay yidhahdaan macnaha ilaahay subxana watacaala uga sheekeynaya uu leeyahay ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waidaa maruu bihim yataghaamazuun waida inqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihiin waidaa ra'awhum qaaluu ina haaulaa'i ladaalluun wamaa ursiluu calayhim xaafidiin wasiilada kale isticmaali jireen waxay ahayd tashwiih tacaaliim alislaam wa ithaarat shubahaat in maaragtay tacaaliimta islaamka la maaragtay foolxumeeyo oo maaragtay shubahaad iyo dacaayado beena laga faafiyo ayaa iyadana ka mid ahayd waxay dhihi jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ula yimid oo qur-aanka ah oo dadka maaragtay qulubtooda gelgelayay waxay yidhahdeen hala yaabina waa khuraafaadkii boqoradii hore iyo khuraafaadkoodii maaragtay soo dadkii hore khuraafaadkoodii uu soo qortay soo guursaday waaye maaragtay qolaana ku saaciday oo u meerisay oo usoo maaragtay uu kasoo guursaday ayay yidhaahdeen maaragtay uu kasoo qortay macnaha ilaahay subxana watacaala nooga warramaya wuxuu leeyahay waqaaluu asaatiiru alawaliina iktatabahaa fahiya tumlaa calayhi bukratan wa asiilaa ma garate meel kale ilahi subxana wataala wuxuu ku leesoo iyaga sheekeynaya waxay yidhahdeen in haadaa ilaa ifkun iftaraahu waxaa dhan waa been waa isaga soo been abuurtay soo maaragtay diyaarsaday wa acaanahu calayhi qowmun aakharuuna qolo kale ayaana ku saaciday macnaha dacaayaadkaas ayay ka faafin jireen si dadku ay uga cararaan diinta maaragtay iyo qur-aankii ay maaragtay uga cararaan ma garate waxay kaloo maaragtay dhihi jireen war hadha ninkan maaragtay dhahaya rasuul baan ahay oo ilaahay baa isoo diray maxay tahay ninkan dadkii lamid ah oo maaragtay waddooyinkii socda oo cuntada dadkii cunayeen cunay ma garate maa malag lala soo dejiyo oo shaqada la qabto oo maaragtay dadka maaragtay diinta la gaarsiiyo oo ilaahin maaragtay ilaahi subxana watacaala nooga warramaya maa lihada arasuuli yaakulu aطacaama wayamshi fi laswaaq ma garate يعني لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا waxay kaloo dhihi jireen maaragtay waa nin hadda maaragtay annagaaba ka hanti badan oo ka maaragtay dhaqaalo fiicane maaragtay ilaahay subxana watacaala uu beero barwaaqo ah siiyo ama kanzi weyn maaragtay maa la siiyo maaragtay uu ka noolaado maaragtay intaa kuma aysan ekeysanine waxay maaragtay nin ayaga ka mid oo maaragtay mujrimiintooda ka mid oo la oran jiray annadr ibn alxaarith ayay waxay u xilsaareen in uu maaragtay ciraaq iyo meelaha aado uu soo barto khuraafaadkii boqoradii faris iyo boqorada meelaha wadamada ku noolaa inuu maaragtay khuraafaadkoodii iyo qisooyin badan oo khuraafaad laga sameeyey boqoradii hore ayaa jiray oo dadku ay ku madadaalaysan jireen oo ay ku sheekaysan jireen oo habeenkii ku caweyn jireen qisooyinkii marka soo bartay uu soo maaragtay qortay soo qaatay wuxuu la yimid maaragtay maxay ahayd makuu la yimid marka wuxuu sameyn jiray meel kasta oo nabiga calayhi salatu wasalaam istaago dadka kala hadlo oo dareemo dadkii inay ku ta'athureen hadalkiisii laana qulubtii buu saameynaya marka si aysan dadku aan ugu sii fakerin arrintan oo ay qalbigooda kusii harin oo maaragtay beri aysan u horseedin inay bal intay maskaxdooda fakaraan xaqii ay qaataan ma garatay meeshuu fadhiisan jiray markuu nabiga ka tago maaragtay dadkii uu la hadlayaa wuxuu uga sheekeynaa marka qisooyinkan iyo khuraafaadkan si uu raadkii uu ku reebay qur-aankii iyo hadaladii macaa uu nabiga alay salaam kula hadlay uu ku reebay si uu uga tirtira macnaha marka qisadaas ka sheekeyn jiray markuu dhammeeyeyna wuxuu dhihi jiray yani bima maxamed khayrun mini maxamed aniga muxuu iga fiican yahay asagana khuraafaad uu ka sheekeynaya anigana khuraafaad ayaan ka sheekeynaya dadkana marka ta'hiirkii iimaanka iyo hadalkii iyo qur-aankii uu ku yeelan lahaa ayuu maaragtay ku dadaalayay inuu ka tirtiro intiiba way socon weyse laa jeesjeeskiina waxba kama tarin nabiga calay sala slam iyo saxaabadiisii diintoodii bay hore ugu sii socdeen iimaankoodii baa maaragtay ilaahay subxana watacaala qawi uga dhigay oo maaragtay waxaa dhag jaraq uma aynaan siinin macnaha shubahaadkii iyo tashwiishkii iyo wixii dacaayado la furayna hadda muslimiintii iyo nabiga calay sala salaamna saameyn kuma yeelanin dadkii xaqaan raaci lahaa oo rumeyn lahaana kama aysan celinin qof kastoo fakera oo aayaadkan ku fakera wuxuu maaragtay arko u qaatay noqonaysay shubahaadkaana dadku marka hore wareersan oo dhunsan ayay un maaragtay sii dhuminayeen macnaha intii markay dhacday oo wixii ay suurtageli waayeen gaaladii waa maaragtay usqida fii aydihim
taa gacantoodii waa ka baxday. waxay marka bilaabeen inay ku fakaraan sidee bay arrintan marka uga hortegi karaan oo kale ay samayn karaan macna. waxay garteen ay isla soo qaadeen inay markaa habboon tahay inay nebiga gorgortan la galaan oo bal cala aqal meel dhexal isugu yimaado ma garat asagan uu xoogaa wax ka soo tanaasulo ayagan ay wax ka soo tanaasulaan si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay wadduu low tudhinu fayudhinuun. saasay marka in meel dhexal isugu imaado ayay jeclaysteen. nabigay u tageen calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen marka yacni aan maarata meel dhex isugu imaano. waxay u soo bandhigeen in uu aalihadooda sanad caabudo ayagana ilaahiisa ay sanad caabudaan ma garat ay soo bandhigeen. riwaayaad badan arrintaa ku soo arooray. qaar waxay sheegeen xataa in maaragtay marba soo yeereynayeen waayahay bil caabud anaga sanad caabudno yacni ay soo ilaa maalin wax uun inuu ka tanaasulo. marka ilaahi subxana wa taala wuxuu soo dejiyey qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun. aayadkaasaa soo degtay suurat alkaafiruun. waxaana caabudaysaan anigu ma caabudayo ma garati walaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana caabidun maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbud lakum diinukum waliya diin. meel aan isugu imaanayno ma jirto macnaha ma garati. waxaa kaloo ilahi subxana wa taala soo dejiyey qul afa gayra allahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahiluun. ma cidaan ilaahay ahayn ayaad i amraysaan inaa caabudo maaragta. walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka. adiga iyo ambiyadii kaa horey waxaa laidiin soo waxyooday haddii aad shirki la timaado ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa aad cid kale la wadaajiso wax kasta ood samayso oo acmaal wanaagsan ah way burburayaan maaragta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin. lannahu acmaashan wanaagsan si kastoo u qorxoonaadaan waxa ay ku dhisan yihiin aasaaska u ahbaa tawxiidka. aasaaska hadduu dumane wax alla oo wax lagu dul dhisan iyagana waa dumayaan. sida guriga maaragta marka la dhisayo aasaas loogu sameeyo marka wax kastoo gurigaa kor saaran oo dabaqi ah ha noqdo 5 dabaq ha noqdo 10 ha noqdo 100 kulligood asaaskaas ayay ku dul dhisan yihiin. hadduu asaaskii dumo kulligood intay la ekaadaan waa soo dumayaan macnaha. marka acmaasha saalixaadka oo dhan waxay ku dhisan yihiin tawxiidkay ku dhisan. haddii tawxiidkii la waayo ayagana waa ay dumayaan macnaha. markii ay gorgortankii wax ku keeni waayeen oo ay maaragtay arrintii u suurtageli weysay gaaladii waxay maaragtay u jeesteen markaan inay isticmaalaan xoog inay isticmaalaan caburin inay ku sameeyaan muslimiintii inay dhibaateeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintii ayay u jeesteen. wax kastoo isku dayaan iyo duruq kastoo isku dayaan oo ay muslimiintii iyo nabiga calayhi salaam ka celiyaan waddadan inay kusii socdaan dadkii kalena ay ka hor istaagaan diinta way socon weyse. markaan waxaa u soo haray inay xoog isticmaalaan waana dhaqan jaahiliyadu ay leedahay. markii ay maaragtay tala gacantooda ka baxdo an yajinna junuunuhum inaa markaa ay maaragtay wareeraan oo meel ay aadaan ay garan waayaan oo isku dayaan marka dadkii inay caburin iyo xoog inay maaragtay uga reebaan waddadii. marka amthile ayaan ka soo qaadan doonaa haddii ilaah yidhaahdo. waxaana hooshaa maaragtay xooggeeda qabtay oo calankeeda maaragtay qaaday abujahal oo maaragtay nabiga calayhi salatu wasalaam uu ku tilmaamay fircaunu hadihi lumma. marka abujahal wuxuu samayn jiray haddii uu maqlo qof islaamay wuu u tegi jiray. marka hadduu yahay qofkaas qof dadka maaragtay ashraafta ee magaca magaalada ku dhex leh hadduu ka mid yahay wuxuu ku dhihi jiray maaragtay intuu u goodiyo uu dhihi jiray waan ku maaragtay magac beelinaynaa oo bulshada dhexdeeda maaragtay maqaamkan iyo magaca ku leedahay waan kaa baabi'inaynaa maaragtay in magaalada iyo maaragtay bulshada dhexdeeda aan qiimo ku lahayn oo ra'yigiisa aan la qadarinin ayaan kaa dhigaynaa ayuu dhihi jiray macnaha. haddii qofku uu yahay qof ganacsada ah oo maaragtay hantilaho markaa ganacsanaya suuqa ku jira isagana wuxuu dhihi jiray maaragtay waxa waaye ganacsigaaga waan maaragtay waan kaa burburinaynaa badeecadaadu waa ay kugu baaraysaa dadkii baan kugu kicinaynaa si aan waxba kaaga iibsanin oo maaragtay hantidaada iyo ganacsigaaguna meesha uu ku baaba'o ayaan ka shaqaynaynaa ule. waana laba arrin bani aadamku aad u neceb yahay oo maaragtay uu maaragtay ka cararo inuu maaragtay bulshada iyo maqaamka iyo makaanada u leeyahay inuu waayo oo qof dadkii maaragtay hoose lamida u noqdo. qofkii marka hore magac lahaa dadku ay qadarin jireen kor u fiirin jireen hadda inay ixtiqaaraan oo hoos maaragtay loo fiiriyo qofku waa neceb yahay maaragtay.
dad badan makaanadooda inay adkaystaan ay wax kasta u maraan. Midda labaadna dakhligii iyo hantidii iyo meesha qofka wax ka soo galayay in maaragtay laga xiro, laga ciriiriyo oo maaragtay badeecadiisu ay meesha ku baaba'do, qofku waa maaragtay shay dadku ay ka cararaan. Marka laakiin dadkan waa dad mu'miniina, ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda iimaan u geliyey. marka iimaanka ayaa waxaa dhanba kala weyn oo maaragtay arrintaa waxba ma aysan ka celin. maaragtay qofka hadduu yahay qof daciif ah oo maaragtay tabarta taag daran, wuxuu dhihi jiray wuu garaaci jiray maaragtay oo gacantooda ula tegi jiray. dadka sufahadana waa ku diri jiray inay maaragtay dhibaateeyaan oo ay garaacaan oo dhib u geystaan. marka aad buu maaragtay qof kasta oo maqlo inuu islaamay saddexdaas qayb maaragtay ayuu maaragtay u qaybin jiray. qolo kastana markaa wuxuu ku samayn karo ayuu ku samayn jiray maaragtay. marka amtila ayaan soo qaadanayna haddii ilaah yiraahdo. mithaalka ugu horeeyo waxa weeye maaragtay bilaal ibnu rabax radiallahu canhu. isaga waxaa maaragtay oo adoon u ahaa nin la oran jiray umaya ibnu khalaf oo reer bani jumax ah. marka tacdiib badan oo runtii aad u xanuun badan ayuu marsiin jiray. wuxuu ku samayn jiray inuu qoorta xarig uga xiro, kadibna caruurta uu u dhiibo, uu yiraahdo magaalada maka kusoo wareejiya iyo buuraheeda kusoo wareejiya ayuu dhihi jiray maaragtay. ilaa xarigga uu qoortiisa maaragtay calaamado iyo raad ku sameeyo ayuu maaragtay saas yeeli jiray. wuxuu kaloo soo wadi jiray bilaal maaragtay qoraxda markay kululaato ayuu maaragtay banaanka intuu soo bixiyo oo markaa dhulkiina uu maaragtay qoraxda intay ku dhacday oo asagana maaragtay karkarayo kululaaday ayuu markaa meeshaas ayuu maaragtay jiifin jiray. kadibna dhagax weyn ayuu korka ka saari jiray. markaas ayaa waxa isugu darsami jiray maaragtay kuleelkii qoraxda oo korka haya iyo kuleelkii dhulka oo maaragtay hoos ka haya iyo dhagaxii culeyskiisii oo maaragtay korka ka saaran. marka ilaa uu jirkiisii la karkaro ayuu noqon jiray maaragtay. dabcan dhagaxa laftirkiisa waa kululaanaya, haddana kuleel kale ku sii daraya. saxaabiga camr ibn alcaas oo waagaa markaa aanan muslim ahayn ayaa wuxuu waagi dambe ka sheekeynayaa inuu bilaal oo markaa la tacdiibinayo inuu soo agmaray, uu arkay xaaladdu ku sugan yahay, sida uu jirkiisa u karkaraya. wuxuu ku suureeyey camr ibn alcaas in uu yiri maaragtay haddii gabal hilib ah korka laga saaro bilaal waa uu bislaan lahaa uu leeyahay maaragtay hilibka waa uu bislaan lahaa macnaha sida uu jirkiisa u kululaaday u karkaraya macnaha. xaaladda uu ku sugan yahay marka umaya wuxuu ku leeyahay bilaal saan ayaad ahaanaysaa ilaa aad maxamed ku kufriso, laata iyo cuzana aad rumayso ayuu ku dhihi jiray. markaas ayuu bilaal wuxuu ugu jawaabayaa axadun axad axadun axad anaa kaafirun billaati walcuza. aniga laata iyo cuza waan ku kufriyo leeyahay maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala waaxidka keliya un baan maaragtay rumaysnahay oo adoon u ahay. marka yacni aad buu uga xanaaqi jiray warkaas ilaa uu marka dambe yacni markuu arrintaa ku celceliyay bilaal inta xanaaqo ayuu ceejin jiray ilaa uu maaragtay suuxo. bilaal ceejintaa la suuxo kadib haddana markuu soo miirsado meeshiisu kasii wadi jiray maaragtay axadun axad. marka isagoo markaa dhibkaa muddo ku jira ayaa maaragtay waxaa ka soo iibsaday abubakar radiallahu canhu ayaa ka iibsaday umaya, kadibna waa uu xoreeyey maaragtay radiallahu canhuma. waxaa kaloo ka mid ahaa dadkii maaragtay aad loo tacdiibiyey reer yaasir, camaar ibnu yaasir iyo aabihii yaasir iyo hooyadii maaragtay sumaya. ayagana maaragtay waxaa tacdiibin jiray abujahal ayaa tacdiibin jiray iyo reer bani makhzuum. marka sidoo kale bannaankay usoo bixin jireen, qoraxda kulul ayay usoo bixin jireen, meesha ayaa lagu cadaabi jiray. nabiga calayhi salaatu wassalaam markuu soo agmaro maaragtay yacni dhibka ay ku jiraan qalbiga ayuu u dejin jiray oo wuxuu ku yiri maaragtay salawaatu rabbi wasalaamu calayh sabran ala yaasir fa ina mawcidakum aljanna. sabra, waxaan cadaabkan iyo dhibkan adduunka ku maraysaan adkaysta, waa waqti yar, adduunka dhan baaba gaaban, laakiin maxaa ka dambeeya? waxaa ka dambeeya jannaa ka dambeysa oo ilaahay subxaana wa tacaala u diyaariyey mu'miniinta iyo raalli ahaanshihiisa ayaa ka dambeeya. kan isaga dulqaata waa waqti yar, laakiin barwaaqo iyo nicmo fara badan ayaa ka dambeysa maaragtay. sidii bay maaragtay ayagana runtii iimaankooda qiimaha uu leeyahay iyo maaragtay cajaa'ibta uu leeyahay meesha ay ka soo muuqatay oo aad maaragtay u adkaysteen ilaa maaragtay sumaya meeshii lagu dilay oo maaragtay abujahal waran uu ku ganay maaragtay ku shahiiday. yaasirna maaragtay tacdiibkii uu ku batay ilaa markii dambe uu meesha asagana ku shahiiday. tacdiibkii maaragtay yani daakhil tacdiib ayuu ku dhintay maaragtay meeshaasay marka iyagana shahaadadii ku qaateen maaragtay ridwaanullaahi calayhim. camaar asagana tacdiibkii baa lagu waday
ilaa markii aabihii hooyadii ay shahiideen haddana waa lagu sii waday ilaa markii dambe dhibkii uu ku batay. gaaladiina markasta ay leeyihiin ma ku sii daynayno ilaa aad maxamed cayso laata iyo cusana aad khayr ka sheegto. markii dambe sidii uu sameeyey, marka way sii daayeen. markii ay sii daayeen aad buu arrintii uga murugooday, uu ooyey oo arrintu arrin halis ay la noqotay, uu ka baqay inuu halaagsamay. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa marka u tagay arrintii u sheegay. nabiga ayaa marka dejiyey aayad baa ilaahi subxaanahu caza wajalla soo dejiyey oo ilaahay leeyahay man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan. sideeda qof inta ilaahay subxana watacaala rumeeyey oo iimaan siiyey inuu iimaankii iyo diintii ka noqdo waa arrin halis ah, ma garate. laakiin waxaa laga soo reebay qofka la qasbay ee markaa asaga aanan diintii ka noqonine qasabkaas iyo dhibkaa iyo rafaadka uu maray wax uun markaa u qoladan dhibaysa isaga sii jeediyo uu yiraahdo, oo laakiin aynan la soconin inuu kufrigii iyo khaladkii shabkaxsada aysan la soconin, laakiin wuxuun iyagii isaga sarfiyo uu yiraahdo. qofkaa qasban isaga waa laga cudurdaar baa la siiyey oo markaa kuma jiro. sidaas buu marka Camaar isagana qalbigiisa ku degsaday. waxaa kaloo aad loo tacdiibiyey Khabaab ibn al-Arat radiyallahu canhu. isagana mushrikiinta dhibaatooyin kala duwan ayay marsiin jireen. waxay samayn jireen in ay intay isagana banaanka keenaan oo ay dhuxulo markaa karkaraya oo dab leh ayay inta soo qabtaan ay ku dul jiifin jireen. asaga inta qabtaan dhuxushaa karkaraysa ay ku dul jiifin jireen. markaasaa dhuxushii dabkii wuxuu ku damayaa dheecaanka jirkiisa ka soo baxay ayaa dabkii dhiminaya macnaha. marka ilaa ay dhuxulaha karkaraya ay jirkiisa godad ka sameeyeen, oo godadkaas markii dambe xataa uu ku raystay oo waagii Cumar radiyallahu canhu khaliifada ahaa ayuu tusay dhabarkiisa godadka ka samaysmay ayuu tusay macnaha tacdiibka uu maray siduu ahaa. marka dhuxulaha isagoo ku dul jiifa oo karkaraya ayay haddana dhagax korka ka saari jireen. runtii dhibaato aad u fara badan ayay marsiin jireen radiyallahu canhu, ilaa dhibka markuu ku batay uu nabiga calayhi salaatu wasalaam u tegey oo ku yiri rasuulka ilaahayo maad ilaahay gurmad noo weydiisid oo ilaahay noo berisid, dhibkii aan ugu batay macnaha u leeyahay tacdiibkii baan ugu batay. markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu jawaabay dadkii idinka horeeyey oo nabiyadii hore raacay waxaa dhib badanaa la marsiin jiray. qofka inta lasoo qabto baa god loo qodayaa, godkaabaa lugaha loo dhexgelinayaa, kadibna minshaar baa lasoo qabanayaa oo madaxa inta laga saaro baa laba gabal qofkii loo qaybinaya loo kala jaraya, ma garate. intaa diintiisa ka noqon maayo ilaa uu ku nafbaxo. waxaa kaloo lasoo qabanayaa shanlo oo bir ah oo markaa karkaraysa baa waxaa la marsiinayaa hilibkiisa iyo lafihiisa inta udhexaysa lagu shanlaynayaa, ma garate. taana ka celin mayso inuu diintiisa ku adkaysto oo diintiisa uusan ka noqonin. laakiin wuxuu yiri waa degdegaysaan arrintan ilaahay subxaana watacaala wuu dhammaystirayaa, diintan way guuleysanaysaa. ilaa qofka musaafirka uu ka soo baxo Sancaa ilaa Xadramood uu soo aado cid aan alla subxaana watacaala ahayn uu ka baqayo in aysan jirin, iyo inuu xoogaa ariga uu wato dugaaga iyo waxa waraabaha iyo waxa uu ka waardiyeysto, ma garate. ammaanka jiro iyo dhulkasuu islaamka ugu faafi doono ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u sii tilmaamay. Muscab ibn Umayr radiyallahu canhu isagana markii hore intuun islaamin wuxuu ahaa wiil aad u ladan buu ahaa. hooyadiisu waxay islaan hanti badan leh, marka magaalada wiilasha ka muuqdo runtii bal ninka ugu muuqdo ugu dhaqaalaha uu ka muuqdo u ahayo labis qurxoon oo caraf badan oo jirkiisu naacim yahay nicmada ay ka muuqato ayuu ahaa. marka markuu islaamay hooyadii aad bay uga xanaaqday, way la colaytantay, hantida xoolihii dhan ay ka goosatay, way gaajaysay ilaa ninkii labiska qurxoonaa uu noqdo dhar karkaran wato oo dhar adag wata, ilaa markii dambe xataa makhaarkiisa uu isbedelay. qofka marka uu nolol hore ku jiro oo nicmo iyo cuno fiican iyo caynbacayn uu ku jiro oo barwaaqaysan yahay, iyo markuu nolol taqashuf iyo rafaad iyo waxuu cuni kara ay yaryihiin, waqti wax heli kara ay yaryihiin, labiskiisa uu labis qalafsan noqdo, qofku waa isbedelay ilaa makhaarkiisa u adkaaday
u noqday maaragtay maalin maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada oo fadhiya ayuu soo agmaray cali bin abi taalib baa ka sheekeynaya marka isagoo markaa Muscab wata dhar karkaran wata oo maaragtay adag ayuu soo agmaray marka nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu arkay wuu ilmeeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu maaragtay garanayaa xaalkii Muscab ee hore siduu ahaa iyo sida uu markaa maaragtay noqday laakiin waxaas oo dhan wax maaragtay waa adduunyada gaaban aakhira waxa maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu diyaariyey waa maaragtay wax la qiyaasi kara maaha dadka iimaanka u saaxiibka haddana marka dambe shahaado ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey ridwaanullaahi calayh dadka marka la dhibaateeyey runtii lama soo koobi karo oo maaragtay yani aad bay u fara badan yihiin insha allahu tacaala amtiladaas ayaan ku gaabsanaynaa haddii ilaah yiraahdo halka ayaan ku ekeysanaynaa xalaqadeenan xalaqada xigta ayaan insha allahu tacaala kaga sheekeyn doonaa dhibaateyntii ay gaaladu dhibaateyn jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam intaan xalaqada xigta kaga kulmayno waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh